kulanti wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada wararka ugu dambeeya dhambaalka wararka qodobada warkeena aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo kulan degdeg ah iskugu yeeray golaha wadatashiga qaran hogaamiyaasha dowlad goboleedyada oo shuruudo horla ku xiray ayaan idiin haynaa. shirkadaha shidaalka ee dowladaha Norway iyo Mareykanka oo dib u bilaabay qorshahoodii ay kula wareegayeen xirmooyinka shidaalka Soomaaliya ma u suurtagelaysaa dowladda federaalkuna ma u ogolaan doontaa xog ayaan idinkaga soo gudbin doonaa. goorme ayaa la doonayaa in dalka dib loogu soo celiyo cutubiyada ciidanka militariga Soomaaliya ee ku maqan dalka Eritrea xageese marayaan dadaaladii dowladdu ay ku xalinaysay caqabadaha ka hortaagan ciidankaas inay dalka soo gaaraan. UK taageerada ay siin jirtay Soomaaliya waxay u weecisay dowladda Kenya iyo qorshaha ay ka leedahana faahfaahin ayaa laga helayaa. Mareykanku waxa uu soo saaray walaac hor loo ku aadan xaaladda wadanka Itoobiya iyo qatarta ay wajahayso Soomaaliya oo daris la duniduna waxay wajahaysaa culays weyn iyo cabsi kadib markii Mareykanka loogu hanjabay hubka nuclear-ka in lagu weerarayo. inta daawateen waa qodobada wararkeena daawada ku soo dhaw wararkaas iyo warar kale oo dhameystiran. qodobadaas iyo qodobo kale daawada ku daawan doontaa warka subscribe saar channelka si mar walba aad u heshid wararkeena kuna xirno dhambaalka wararka. anoo ku bilownaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa casuumay hogaamiyaasha golaha wadatashiga qaran ee Soomaaliya inay iskugu yimaadaan kulan degdeg ah kaas oo looga arinsanayo xaaladda guud ee wadanka. kulankani waxa uu daaran yahay sidii looga jawaab celin lahaa xaaladda amni ee dalka oo muuqata inay isbedeshay iyo sidoo kale xasarada ka aloosantay qaar ka mid ah dowladaha Soomaaliya dariska la iyadoo weliba taasi ay iskugu jirto mid diblomaasiyadeed iyo sidoo kale mid amni iyadoo laga jawaab celinayo weerarada ay qaadayaan kooxaha gudaha Soomaaliya ku sugan iyo sidoo kale qorshaha dowladda ee xoreynta wadanka ayaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa uu ku wargeliyay xubnaha dowlad goboleedyada in ay soo xaadiraan shir ay iskugu yimaadaan 10 bishan isla markaana diradda lagu saarayo ammaanka dalka. shirka sidoo kale waxaa lagu soo bandhigayaa shaxda duulaanka cusub ee dowladdu ay doonayso inay wadanka ku xoreyso iyadoo dowlad goboleedyada lala wadaagayo ahmiyadda howlgalkaas iyo deegaanada mudan in laga bilaabo si toos ah inkastoo dowladdu adeegsanayso quwado heer militari ah kuwaas oo heer caalami qaarkood ay yihiin isla markaana doonaya inay gacan ka geystaan qorshaha dib u xoreynta iyo sidoo kale gacan ku soo dabaalidda deegaanada maqan ee wadanka. dowlad goboleedyada qaarkood way aqbaleen in shirka golaha wadatashiga qaran u dhaco balse waxa ay soo jeediyeen halka lagu qabanayo. hogaamiyaasha dowlad goboleedyada Koonfur Galbeed, Jubbaland iyo Puntland ayaa waxaa mid walba uu sheegay inuu martigelinayo shirka golaha wadatashiga qaran isla markaana lagu qabanayo magaalooyinka Kismaayo, Garowe iyo sidoo kale Baydhabo iyo Kismaayo oo mid walba u dhankiisa sheegtay. madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani oo ka carooday dhowaan xiriirka dowladda iyo qaabka uu socdana aan la dhacsanayn ayaa ku gacan saaray inuu soo gaaro magaalada Muqdisho waxaana sheegay in shir haddii loo baahan yahay in golaha wadatashigu isugu yimaadaan in gogasho ay taalo magaalada Garowe oo amni ahaan la isku haleyn karo. sidoo kale madaxweynaha Jubbaland oo asna culays siyaasadeed uu ka haysto dhinaca siyaasiyiin iyo sidoo kale shakhsiyaad is-abaabulaya oo ka soo horjeeda maamulkiisa saldhigna ka dhigtay Muqdisho ayaa asna soo jeediyay in shirka golaha wadatashiga qaran ay tahay in lagu qabto magaalada Kismaayo maadaama golahu aynan marnaba ku shirin magaaladaas lana doonayo inay iskugu yimaadaan oo dowladda cusub ay muujiso sida dalka iyo dadkuba ay ugu siman yihiin. halka hogaamiyaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo asna culays uu ka haysto Muqdisho oo xasarad siyaasadeed maamulkiisa ay wajahayaan oo asna soo jeediyay in Baydhabo lagu qabanayo shirka isla markaana golaha wadatashiga qaran ay fursad u haystaan inay helaan magaalo amni ah. Galmudug iyo sidoo kale Hirshabelle ayaa laga arkaa cid dhexdhexaad ka noqotay arrimahan isla markaana aan si rasmi ah uga hadlin aragtideeda balse hogaamiyaasha dowlad goboleedyada waraaqaha ay direen xafiiska ay dib ugu celiyeen madaxweynaha ayaa lagu xaqiijiyay in mid walba uu sheegtay magaalada asagu uu maamulo in shirka lagu qabto. si walba ha ahaatee madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa waxaa horyaala in dowladdiisu ay si rasmi u bilowdo qorshaha duulaanka cusub ee xoreynta dalka loogu magac daray isla markaana la doonayo in lagaga takhaluso bilaha u horeeya xilhaynta madaxweynaha guud ahaanba ururada hubeysan ee ka jira koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. dowladaha Mareykanka iyo sidoo kale Norway shirkadahooda shidaalka soo saara
ayaa waxa ay dadaalkii ugu badnaa ay ku bixinayeen sidii ay u heli lahaayeen lacagihii kaga baxay baarista shidaalka Soomaaliya iyo sidoo kale qandaraasyadii ay la galeen dowladda Soomaaliya, iyagoo weliba si toos ah qaarkood ay u bilaabayeen xirmooyinka u calaamaysan ee shidaalka Soomaaliya soo saaristooda. Shirkadda laga leeyahay Mareykanka ee soo saarta shidaalka isla markaana ka shaqeysa arrimahaas ee lagu magacaabo Coastline Exploration ayaa si rasmi ah iyadu waxa ay horey heshiis 7 milyan ku kacaya ay ula gashay dowladdii hore ee Soomaaliya, iyadoo si toos ah u bilaabaysa soo saarista shidaalkan oo ku jira qaybo ka mid ah koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya, gaar ahaan aagga xeebaha Badweynta Hindiya. Dowladda Mareykanka ayay awoodeeda u adeegsan doontaa isla markaana ku riixi doontaa Soomaalidu inay aqbalaan ilaalinta heshiiska caalamiga ah ee lala galay, maadaama ay doonayaan in deynta laga cafiyo maalgashi shisheeyana ay helaan. Xirmooyinka shidaalka ayaa horey loo sheegay in ay ahaayeen kuwo qaab xaraasha ku baxay oon sharci ahayn. Waxaa sidoo kale ayana kusoo biirtay shirkadaha shidaalka ay leedahay dowladda Norway, isla markaana horey xiriir ula lahayd ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre, halka tan Mareykankuna ay heshiiska la gashay madaxweyne Farmaajo. Goorma ayay dowladdu qorsheynaysaa inay dib ugu soo celiso dalka ciidanka ku maqan wadanka Eritrea? Maxaa xal loo helay caqabadihii dowladdu ay tiri waa xalinaynaa ee hortaagnaa ciidamadaasi? Xog la helay ayaa muujinaysa in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu magacaabayo guddi saraakiil sarsare iyo sidoo kale xildhibaano iskugu jira, kuwaasoo loo saarayo sidii ay u hogaamin lahaayeen qorshaha ka bixitaanka ciidamada Soomaaliya ee ku sugan gudaha wadanka Eritrea ee ay dib ugu soo ruqansanayaan dalkooda, iyadoo weliba dowladdu ay qorsheynayso in cutubyada ciidanka ahi ay hubkooda iyo qalabkooda ay ku helaan gudaha dalka, isla markaana ay si toos ah ay u helaan saanada dagaal ee ay u baahan yihiin. Halka madaxweyne Asiyaas Afwerkina sidoo kale uu doonayo in dowladdu ay bixiso qarashaadka kaga baxay ciidankaas oo kordhay isla markaana gaaraya xilligaani wax ka badan 55 milyan ilaa 60 milyan oo doolarka Mareykanka ah. Sidoo kalena waxa uu doonayaa in ciidankaasi la soo bandhigo oo la muujiyo qorshaha dowladda Eritrea ay ku tababartay ciidankaas, iyagoo weliba si muuqda loogu daabulayo dalkooda oo aan qarsoonayn. Si walbaba ha ahaatee, dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dadaalkii ugu badnaa waxay ku bixinaysaa sidii ciidankaasi ay dib ugu soo laaban lahaayeen dalka, iyadoo weliba laga faa'iideysanayo aqoontooda iyo sidoo kale kartida adag ee ay ku soo qaateen tababaradii kaga socday gudaha wadanka Eritrea muddaha sanadaha. Inkastoo dowladda Soomaaliya ay wajahayso culays weyn oo kaga imaanaya Itoobiya oo culays iyo cadaadis saaraysa madaxweyne Asiyaas Afwerki kuna riixaysa inuu hoos u dhigay xiriirka militari oo la yeelanayo Soomaaliya, isla markaana uuna ku degdegin dib u celinta ciidamadaas, haddana dowladda ayaa waxay sheegtay in qarashkaas loo diyaarinayo, waxaana dhowaan la filayaa in dowladda Qatar ay shubto lacag gaaraysa 80 milyan oo doolarka Mareykanka ah oo lagu maalgelinayo ciidankaas iyo sidoo kale dib u soo laabashadooda. Dowladdu weli si rasmi ah uma ay shaacinin guddigan saraakiisha militari iyo xildhibaanada iskugu jira ee la doonayo inay hoggaanka u qabtaan qorshaha kala guurka ee ciidamadaas ay kaga soo laabanayaan Soomaaliya ee kaga soo laabanayaan dalka Eritrea. Dowladda Mareykanka dhinaceeda waxa ay shaacisay arrin walwal badan ku haysa kuna aadan xasarada gobolka Geeska Afrika. Mareykanka ayaa sheegay in duulaanka lagu qaaday deegaano ka tirsan wadanka Itoobiya uu sababay in gacanta dowladda Itoobiya iyo dowlad deegaanka Soomaalida intaba ay ka baxaan dhul gaaraya 150 kilomitir oo gudaha Itoobiya, isla markaana ay la wareegtay koox hubeysan oo ka soo ruqaansatay Soomaaliya. Madaxa ciidanka African ama taliyaha guud ee ciidamada African Stephen ayaa waxa uu sheegay in aynan weli kala cadeyn in kooxdaas la soo afjiray, inkastoo ciidamada Itoobiya uu ku ammaanay inay xakameeyeen weeraradii degdega ah ee kooxdu ay soo qaaday. Stephen Townsend oo ah generaalka hogaaminaya ciidanka Mareykanka ayaa hoosta ka xariiqay baahi weyn loo qabo in kooxda gacan adag lagu qabto, isla markaana laga hortago maadaama ay fulisay weerar ama duulaan ballaaran oo muddo sanadaha ay diyaarinaysay, isla markaana ay ku qaaday deegaano ka tirsan gudaha wadanka Itoobiya, isla markaana ay la wareegtay 150 kilomitir sida hadalka u dhigay. Mareykanku
waxaa horey uu walwal uga qabay in dhaqdhaqaaqyada ururkan oo ku xoogan Soomaaliya ay sii socdaan, balse Itoobiya ayaa hadda liiska kusoo biirtay kadib markii ay wajahday colaad sokeeye oo ka abuurantay gobolka waqooyiga ee gobolka Tigreega ee Itoobiya, taas oo hoos u dhigtay taageeradii Mareykanka iyo dalalka kale ee reer galbeedka Itoobiya ay ka heli jirtay. Dowladda UK waxaa la aaminsan yahay in taageeradii ciidan ay siin jirtay Soomaaliya inay qaybo badan oo ka mid ah ay weecisay Kenya, kadib markii Kenya oo dusha laga ilaaliyo islamarkaana horey ay u gumaysatay Britain ay dalbatay in laga xoojiyo islamarkaana laga taageero dhinaca horumarinta ciidamada, tababarada iyo qalabaynta, maadaama Soomaaliya oo muddo 30 sano ahayd dal burbursan ay xilligan kaalmo kasoo gashay militariga. Waxay doonaysaa maalgelin dheeraad ah in laga caawiyo oo ku baxaysa ciidanka militariga. Saacadihii lasoo dhaafay saraakiisha tababarada ciidanka Mareykanka ee ciidanka dowladda Ingiriiska ayaa kasoo dhex muuqanayay xirida tababaro loo soo xiray boqolaal askari oo ka tirsan ciidamada Kenya. Ugu dambeyntiina, hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un ayaa ku hanjabay in uu qaadayo tillaabo militari tii ugu sarreysay islamarkaana inuu adeegsanayo hubka nukliyeerka haddii ay isku dayaan dalalka waqooyiga Kuuriya kasoo horjeeda in ay sameeyaan isku dhacyo militari. Kuuriyada Koonfureed iyo Mareykanka oo sameynaya dhoolatus ballaaran ayaa waxa uu sheegay in aynan haba yaraatee ka fursan doonin in ay adeegsadaan hubkiisa nukliyeerka, kaas oo uu sheegay in loo diyaariyey in dalka lagu difaaco. Maruu hadal ka jeedinayay magaalada Pyongyang ee waqooyiga Kuuriya ayuu sheegay in Seoul iyo Washington ay fahmi doonaan islamarkaana ay arki doonaan cawaaqibta adag ee muddada dheer laga hortaagan yahay. Waxa uu ka hadlayay munaasabadda sanad guuradii kasoo wareegatay markii ay askarta ciidamada Kuuriyada Waqooyi iyo sidoo kale Kuuriyada Koonfureed intaba dagaal lagu hoobtay uu ku dhex maray xadka labada dowladood oo ciidamada Kuuriyada Waqooyi ay guulo la taaban kara kasoo hooyeen dagaalkaas oo isdifaaci ahaa. In uu isticmaalo hubka nukliyeerka waxay walwal badan ku haysaa guud ahaanba dadka Mareykanka oo ka walwalsan in hubka nukliyeerka ee Pyongyang uu bartilmaameedsado magaalooyinka iyo goobo kala duwan oo ka tirsan dalkaas. Guud ahaan daawadeyntaas waxaa ku dhan warkii oo kaaga imaanaya dhamaalka wararka nabadgelyo.